بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan maanta oo sabti ah oo taariikhda bisha Mayna ay laba tahay 2020 waxaanu joognaa anagoo ah wasiirada caafimaadka Fawziya Kar wasiirka ka hortagga masiibooyinka wasiir Hamza safiirkana sharafta leh dalka aan walaalaha nahay Turkiga safiir Yilmaz ambassador Yilmaz iyo shaqaale badan ee wasaaradda caafimaadka wasaaradda ka hortagga masiibooyinka wasaaradda arrimaha dibadda oo ka mid yahay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaanu u nimid inaanu la wareegno oo wasiiradeena sharafta leh Fawziya halkan kula wareegtay kaalmo iyo deeqsinimo ah oo dalka aan walaalaha nahay oo Turkigu ay noo soo direen waa shipmentigii ama tii deeqdii koowaad oo kamid ah deeqo dhowr ay noo soo dirayaan Turkidu maalmaha soo socda waxa diyaaradda ciidamada ah ayaa keentay deeq ballaaran weeye oo gacan weyn ka geysanaysa ka hortagga iyo la tacaalidda ama daaweynta COVID-19 ama jiradan dunida gilgishay coronavirus ay dhahaan qalabka tafaasiishiisa wasaaradda caafimaadka ayaa haysta oo bixin doonta waxaase ka mid ah qalab sida ventilators waxaa ka mid ah qalabka lagu baaro ventilatorska waa mashiinada dadka siiya maxaa la yiraahdaa ku kaalmeeya neefsashada waxaa kaloo ka mid ah qalabka la isku baaro kalkaaliya waxyaabahan auxiliary-ga la yiraahdo oo gacan ka geysta iyo qalabka qalabka hortagid jirada nafteeda marka waxaan anigoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed magaca madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo magaca saaxiibadayda wasiirada aan halkan isla joogno saaka soo dheelmaday waxaanu u mahadnaqaynaa dawladda Turki iyo ambassadorkeeda sharafta leh iyo shacabka Turki xukuumad iyo shacabba sida deeqsinimada iyo walaaltinimada leh oo markasta ay noo garab taagan yihiin waa mahadsantihiin